السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي maanta videoga waxay igu kalifay gabar abaya ayaa iga codsatay in aan aan kasoo hadlo paybakotiga iyo ama sida u taqaani wadankan aan Finland degan waxa lagu dhahaa paybakotiga laakiin af Soomaali waa xanaanada meesha caruurta lagu xanaaneeyo ama meesha hooyooyinka caruurta loogu haayo waqtiga ay ka yar yihiin xilliga iskuulka soo dhawaada. horta sida ognahaba wadankan anaga wadankeenu wuu ka duwan yahay oo waxaa jirta meel xanaano ah oo ilmaha lagu xanaaneynayo hooyada haday shaqeyso oo si maadaama wadankan Yurub ay hooyooyinka yihiin ama hooyooyin shaqeeyo ama hooyooyin wax barto hooyooyinka waxay ku qasban yihiin ilmahooda in ay xanaanada geeyaan waqtiga ay ama iskuulka ku maqan yihiin ama wax baranayaan sida darteed meel walba xanaano ayaa ku taalo xaafad walba waxa laga yaabaa 3 xanaano 2 xanaano xaafad walba wixii ku xiran tahay si xaafadaha u kala waaweyn sida dadku u kala degan yihiin meel xaafada waxa jira ay ku badan yihiin faamilada ilmaha haysta iyo xaafada ay ku yareereen oo dadka iskaabulada u badan yihiin okay marka maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo hooyada xanaanada hooyada xanaanada xaq u leh goormee la dalbadaa meeqa la sugaa iyo waxyaalaha marka xanaanada la helo dhexdooda quseeyo lambar 1 xanaanada marka dalbanaysa ka bas qad daarti cunugaada inuu bishii 8aad ku bilaabo ina 4 bil ka hor dalbataa 4 bil ka hor waa inaad dalbataa 8aad daarti koodeed inuu ku bilaabo waa inaad dalbatid maxay ahayd shanaad may waxa dalbanay afaraad shanaad lixaad toddobaad 4 bil waxa xaq u leedahay 4 bil kadib marka dalbatid in xanaanada lagu siiyo marka dalbanaysid hab waxa jiro online ka looga dalbado oo page laga dalbado hada Google ku qortid Paybakoty Hakemus ama xanaanada aad ku qortid waa helaysaa bankigaada ku galaysaa kadibna waa dalbanaysaa wax weyn lama sii buuxina ku weydiina cunuga magaciisa goorta rabtid inuu ku bilaabo maalmaha uu fasaxaya oo laga wada sabdiga iyo axada qadibna waa diraysaa haduu walaalo leeyahay walaalihii ku weydiina hadaa rabtid laba cunug inaad u dalbatid cunug kasta si gooni waa inaad ugu dalbatid taas waa habka loo dalbado marka dalbanayso wuxuu kala ku weydiinaa xanaanooyinka rabtid magacyadooda waa inaad ku fiiriso xanaanooyinka ku dhow magacyadooda wuxuu ku leeyahay xanaanada koobaad xanaanada labaad xanaanada saddexaad 3 xanaano kala dooro wuxuu kala ku weydiinaa badhanka bariga diganta ma koonfurta diganta ma waqooyiga diganta si uu u ogaado kuugu soo saar xanaanooyinka magacyadooda taas waa habka dalbashada marka dalbatid kadib waxa xaq u leedahay xanaanada lambar 1 ka dhigata kuugu horeysay qofka madaxda ka ina la xiriirtid ama boomaga aan u naqaano oo madaxda ka waa wace leedahay waxaan soo diray warqadahaas ma idin soo gaaray wuu ku sheegaa wuxuu ku leeyahay wana soo gaaray hadii wax ka qaldan yihiin markaas uu ku saxa hadii aad wax ka tagtana ama xanaano ka dheer aad dalbato wuxuu ku leeyahay intaas ku dhow ama hal xanaano aad dalbatay kuwaas kale aan kuugu daraa anaka ku soo jawaabeeno khalaas taas waa gooni hooyadii aabaha hadaysan isla deganeen ee isfureen ma loo baahna markaas ina aabaha magaciisa iyo dhalashadiisa iyo lambaradiisa ina gelisid waa ka tagi kartaa meesha aabaha ayadoo banaan hadhooti markay kula hadashaday ku tira waxa leedahay aabaha waa kala tagnay magaciisa iyo telefonkiisa si kartaa hadii ay ku baadan ay kala xiriiraan okay hooyada markay kaligeed tahay single mother tahay aabaha haduu xataa shaqeeyo si xanaanada lacagtiisa laga marabo mar walba xanaanada lacagtiisa waxa laga rabaa qofka cunuga xanaanada guriga ku haysto oo asaga uu markaas la degan yahay hooyo shaqeysata hadaa taa waa lagu soo xisaabinaa maxaa ku soo galo maxaa ka baxo markaas hadii lacag badan ay ku soo gashato waxa lagu leeyahay intaas iska bixi markay hal cunug ku dhigato iyo markay 3 cunug xanaanada ku dhigtaan way kala duwanta markay 2 cunug ku dhigtaan iyo markay hal cunug ku dhigto ka soo qaad hal cunug markuu ku dhigto waxa laga yaabaa lacagta ku soo gashay ka laakiin aaba iska dhahan hadii 200 laga qaadi jiray cunuga labaad markay geysatid lacagta way ku raqiisay waxa lagu siinaa qiimo dhimis cunuga saddexaad sidoo kale taas waa gooni xanaanada mar walba cunuga marka geysatid waxa lagu soo diraa warqado lacagta biilka in la bixiyo adi marka hadii aadan shaqeynin ama hadaa shaqeysidba waxa laga rabaa xafiiska markaas meeshas ku qoran
qofka kuu soo diray ama qofka qusay beebikooti kasta qofaa qusay inuu habka lacagta bixinta uu xaliyo ma ahan qofka beebikootiga madaxda ka ah ma aha naagaha ilmaha kuu hayo waa xafiis kaloo ayaga ka duwan xafiiskiyaa la xiriire markaa la xiriirtid waxay ku weydiinaya lacag haday kusoo gasho meeshay lacagta kaa soo gasho iisoo diray ku leeda warqadaha oo bil walba qofka markuu usoo dhaco bil lacag ay kusoo dhacdo warqada la isa siiyaa jiro oo balka laskalma la dhaaf Soomaali wax lagu dhaho ma aqaano warqadaasi ha u diree marka u dirtid email ahaan ugu diray ama xafiiska way ugu geyn kartaa saa adigu ku heshiisiin kadib way ku soo xisaabine kadib markaas waxay ku soo tuure lacag inaad dhiibaysid iyo inaad waxba dhiibaynin taasna waa habka lacagta arrimaha xanaanada lacagta quseeyo kalama hadli karto qofka xanaanada madaxda ka ah kalama hadli karto naagaha xanaanada ku hay ay ka shaqadooda ma aha okay xanaanadu waa soo dalbatay xanaanada markaa heshid waxaa leedahay wax la dhaho aloytuska isku talo intuusan cunuga bilaabin ballanaa lagu qabanaa waxaa lagu tusaa wiilkaada ruhmada ama gruubka uu markaas ka tirsanaa doono asaa gruub ay kala tahay horaa uga soo hadla dib uguma noqonayo gruubkiisaa lagu tusaa macalimada qofka mar walba kusoo wacayo xanaanada oo ku dhahayo hebel hooyadiis maa tahay goormee noo imaane xanaanadiyaan ku tusaa gruubkeeniyaan ku tusaa xilligaas uu kuu bilaabaa kulankii koowaadaan kula yeelana waa macalimada mar walbo haysata ruhmadaas horaa uga soo hadla dadka xanaanada ka shaqeeya waxay kaliya inshaa'ooyinka kala haystaan markay kula soo xiriirto ee u tagtid waxay ku weydiinayaan cunugaada muxuu yahay waa meesha ugu daran ee hooyooyinka Soomaalida beenta ku sheegaan ama ay ku dhacaan yacni waxaa lagu weydiinaa cunugan ayaga ma yaqaanaan waxay rabaan adiga hadalkaada inay bartaan si ula tacaamilaan ama si ula dhaqmi lahaa inay ka baranaan waxa lagu leeyahay cunugaada muxuu yahay hadduu xanaaqa muxuu sameeyaa hadduu qalad sameeyo maxaa ku ganaaxdaa goormuse xilliga hurdadiisa waxyaabo badan dabeecadihiisa cuntada xilligaas waxaa kaloo lagaa rabaa inaad ka hadashid cunugaada cuntadee waa u gashay maadaama anaka muslim nahay ma wuxuu ku cunaa qudaarta kale iyo cuntada la dhaho kasfis iyo kalaa oo malaayga ah mase wuxuu ku cunaa digaaga hilibka dad waxaa jira Soomaali ilmooda digaaga cunaan hilibka cunaan malaayga cunaan qudaarta cunaan waxayse cunin bis doofaarka xataa Soomaali doofaarka ilmooda cunaana jiro oo wax walbo dheheen hala siiyo oo ayaga shaqo ku lehen oo xataa waxay ogol yihiin waxaan liibitada la dhaho iyo qaansiirka iyo wax walba ku jira ilmooda in la siiyo dadku isku wada mid maaha kulligeen Soomaali waa wada nahay isku diinaan nahay isku dalaan nahay laakiin waa kala duwana qof diintu ku adagya qof kaarleysu ka yahay hooyo waxaaba laga yaabaa inay saba tukanba afkaas ay muslimka tahay adiga marka mar walba waa ina adiga u sheegtid familkaada adiga qorshahaada aniga waxaas muhiim ii ah cunugeyga malaay iyo waxa iga siin kartaa qudaar hilibna igama sii kartid digaagna igama sii kartid okay hadduu cunugaada yahay cunug hurdada ku cun oo kaba soo qad habeenkii aan hore ka seexanin waxaa dhihi kartaa 40 daqiiqo bis inuu seexdaan ogolahay 50 daqiiqo inuu seexdaan ogolahay saacad inuu seexdaan ogolo because ilmaha waxaa la seexiyaa 12ka labadaa la soo kiciyaa hadduu 2 saac maanta soo jiifto inuusa galabta kaas inuu markaa 1 saac ama 12ka sirrida geesa ma seexanayo waa inaa u sheegtid kuwa laga yaabo inay kugu dhaama kici karna iyo shaqaalaha nagu yar iyo way kugu dayaayaan laakiin mar walba xaqaada adaa laga rabaa inaad dhacsatid sababta xaqa u leedahay cunugaada lagu kiciyo waxa leedahay aniga iyo ilmahayga iyo familkayga cunuga igama seexanayo because berri subax soo daalan hadaa keentid oo maanta dhan hurdoodo oo cunuga xanaaqsan yahay waa wax adi dib kuugu soo noqonaa marka waa inaa mar walba adi dantaada ka fikirtid okay xaqa u leedahay cunuga markuu xanaanada kuu bilaabo oo dhigto 4 bilood ama 6 bilood macallimadu waxay kula yeelanay waraysi oo adiga ayada kii hore ka weyn oo waxay kuu sheegaysaa vaso kaskus wax la dhaho yacni warbixin guud oo cunuga qusayso koritaankiisa dabeecadihiisa muxuu u baahan yahay in laga caawiyo muxuu yahay muxuu jecel yahay muxuu neceb yahay muxuu u badan yahay waxaasoo dhan ay kaala kulmaysaa warqadda marka way ku siinay inaad soo aqrisid haddaad luqadda si fiican u aqoon u geyso hooyo ku aqriso si fiican ku fahansiiso sababtu waa muhiim inaad ogaatid cunugaada waxa laga qoro ha iska tuuri meel dhigo warqadda kale oo soo socoto ko sanadkii 2 mar la sameeynaa waa inaa warqadaha meel dhigatid waa inaa ogaatid cunugii sanadkii hore hadii ku tiri ma yaqaan sida qalinka loo qabsado okay ma bartay 6 bil kadib hadii ku tiri ma yaqaan inuu ma fadhiisan karo hadafka marka waxa waa mar walba waxaa la leeyahay qorshe la leeyahay waxay ku leedahay
qorshaheena soo socda ama taboy tageena qorshaheena soo socda waa waxaas marka waa inaa ogaatid qorshii may ku guuleysatay may ku guul dareysatay cunugii ma horumar ma sameeyey oo ma kahiteeyey oo ma weynaaday oo dee ma bartay wixii hoos ma usii dhacay ma korow sii aad waa inaa la socotid adaa dhalay ayada ma dhalin adi waa inaa ogta okay ilmaha marka waa aragteen cunuga markuu 3 sano jiro waxaa la fiirinaa ilmaha ficiisa ma u qalmaa ma ka hooseeyaa ilmo waxaa jira hadalka kasoo daaho ilmaha hadalka kasoo daaho kale waxaa jira buhu therapy wax la dhaho neewoladan way kuu sheegay adeeg ku weydiino cunugaada meeqa erayo yaqaan haddaad tiraa 10 erayo Soomaaliya yaqaana xukuleeda uma baahno ayada dhib ma qabto adi waa qofka khasaaraha qabo adi hadda cunugaada wuxuu u baahan yahay diidid adi lay ku dhibeen ayada naagtan shaqadeeda ma ahan ayada cunuga ma dhalin adaa dhalay adoo cunugaada dib u dhacaa adoo cunugaada ficiis ka hooseeya adoo cunugaada ciil dareema adoo cunugaada maaragtay warqadihiisa dhan lagu qoraa adoo cunugaada beri iskuulkiisii iyo mustaqbalkiisii iyo noloshiisa dhib uga imaanay marka mar walba isku day ha ka fikiri heblaaya igu caayne ha ka fikirin animaa geyn karo hooyooyin badan Soomaali waxay ku leeyihiin maalin walba ma ballanaan geyn karaa ballanta waqti kaabana la geynaa cunuga markii buhu teraabiyada loo qabto 10 mar bisaaba loo ogoliyay in la geeyo 10 mar kadib psychology ku qaybta maaragtay maskaxiyanka u fiirinaayo ma laga wada cunugii inuu waalan yahay laakiin waxay fiirinee cunugan waxaa jirta buhu therapy cunuga xanaanada ugu tagayso oo wiil kasta hal maalin u tagayso oo keelada ay lacagteeda bixiso ama xafiiska dawladda oo lacagta ka bixiyo oo aad qaali u ah cunuga la iskama siinaayo waa in 10 mar la soo wareesto waa inuu dhakhtar la kulmo waa inuu qaybtan hadda aan ku sheegaa neuropsychologiga la dhaho inuu la kulmo ma garanaaf Soomaali wax lagu dhaho melihin Englishna kuma aqaan waa inuu la kulmo koow aday kula kulmee wixii ku weydiinay cunugaada muxuu yahay maxaa u baahantay in laga caawiyo marka u sheegtid cunugeyga waa waxaas hadalka dhiba meeqa erayo yaqaan goormuu hadalka bartay maxaa ka walwalsanta ma hadalkiisa kaliya ma waxaadan ma fadhiisa karamiya kiski tuminay dhahan muu qabaa ma ordaa waxaasoo dhan waa inaa mar walba si daacad ah u hadashid sababta ama been sheeg ama run sheeg naagtan way arkay shahaadi u wadataa hal mar laba mar cunugan la kulanto wuxuu yaadhan khalaas adile been sheegay adile lagu arkaa qof daacad inaad ahayn marka weligaa isku dayin been inaad sheegtid waa lagu caawinaa cunugaada marka wixii uu ogolaatid oo wixii saxiixdid oo cunugii la caawiyo ma ahan intaas inaad ogaarto waa inaad la xisaabtantid kaba soo qaad cunuga dil waa la caawinaa waa inaad ogtahay maxaa laga caawiyey goormee la caawiyey meeqa maraa la caawinaa yaa caawinaayo ma eritus obetaaya caawinayso ma macalimada markaas ruumada haysato lastan daraan obetaaya caawinayso waxaasoo dhan waa inaad fahantid eritus obetaayada wiigi meeqa maray la kulmaysaa ma uleynan tukiyaa la siinaa ma eritus tukiyaa la siinaa ma tehoosta tukiyaa la siinaa waxaasoo dhan waa caawitaanada heerarkay u kala baxaan lambar 1 lambar 2 lambar 3 waa inaad ogtahay marka mar walba isku day cunugaada inaad fursad siisid mar walba isku day inaad adi cunugaada caawisid naagtan ayada ma dhalin waxay sameeyaan inta badan waxay ku leeyihiin waa caawinaynaa haddana sidii la rabo uma caawinayaan sababta ma haystaan hooyo la xisaabtamayso ma haystaan hooyo waxaan khibrad u leh ma haystaan hooyo soo jeedo ma haystaan hooyo og cunugii ma haysto hooyo og muxuu u baahan yahay haddaanaga ogeyn muxuu u baahan yahay maxaan ka ogay in la caawiyo in kale oo iska saxiixo hayahay iska dhaho waa inaan ogahay ficiis kaba soo qaad ficiis ilaa xad intee lagu ka hooseeyaa intuu inta badan caawitaan uga baahan yahay ma inuu fadhiisto uga baahan yahay ma 4 erayo yaqaan ma 5 erayo yaqaan 4 erayo waxa laga rabaa kaba soo qaad hooyo caano isii waa 3 eray hooyo caano ma isiin kartaa waa 4 eray hooyo dukaanka ma aadayna waa 5 eray saas waa inaad u tirisay erayada 2 eray 3 eray 4 eray warqaday kuugu qoranta 4 erayo yaqaan 3 erayo yaqaan neel ya lawsanta sana kolme lawsanta sana waa inaad ogtahay ilmaha marka hab ciyaaritaan ay wax ku barayaan ilmo waxaa jiro wixii markii lagu celceliyo kalarada ma yaqaan gaduud cagaar jaalo cunugaada waxa waa cunug marka wax walba u sheegto hore ka qabana bas waa cunug u baahan maanta in lagu celceliyo